بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مقعي وفارح محمود ورسمي أما فارح إسلام. أنا جو كوه الله يا مقع جالية الصوماليات فيكتوريا ودكن أستراليا. أجعلان لها إنان فرين هل كانوا قصوا قدبيو جالية الصوماليات كودقن مقالة ملبون ودكن أستراليا. fariintaasi waxa ay ku saabsan tahay barnaamij aan dhawaan haddii ilaahay idmo aan jecelnahay inaan halkan ku qabanno barnaamijkaas oo ku saabsan fundraising ama tabarucaad aan u qabanayno dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay abaaro ama daadad ka dhacay waddankan Australia. sida aad ka warqabtaan waddankan Australia waa waddan weyn, waddan ballaaran, marna qaarad ah, marna waddan ah. meelaha qaar waxaa ka dhaca roobab badan oo mararka qaar keena waxa la yiraahdo floods ama daadad abuura. sidoo kale waddankan waxaa ku badan dhirta waqtiyada kulaylahana waxaa ka dhasha mararka qaar dab. dadka waddankan ku nool marka ama Australiyiinta ha noqdaan ama dadka kale soo galay waddankan ha noqdaan waxa ay sameeyaan tabarucaad ama waxa ku shaqeeyaan waxa la yiraahdo volunteer oo ay ugu gurmadaan arrimahaas oo kale marka ay dhacaan. sida dhabta ah gobolkan hadda anagu aan ku noolnahay ee Victoria waxaa ku nool let's say haddii ay 5 milyan yihiin 2/3 ama saddexdii meelood laba meel ayaa ku shaqeeya waxa loo yaqaano volunteer ama volunteer oo arrimaha ayagoo shaqooyinkooda howlahooda kala haysta shaqooyinkan kale volunteerigana qabta. arrimahaas waxaan uga jeedaa waxa weeye dadkanu sida ay isu gargaaraan ama ay markay wax yimaadaan oo kale ay ugu gurmadaan. annaguna dee dadka waddankan Australia ayaanu ka mid nahay, dhalashadoodan haysanaa, waanu degannahay, waanu ku ladannahay runtii. waxaanu jecelnahay marka inaanu mar walba ka qayb qaadano barnaamijyada noocan oo kale ama umuuraha noocan oo kale markay soo baxaan inaynu gacan ka geysano. marka barnaamijkan markaan u soo noqdo waa barnaamij sidaan soo sheegay tabarucaad ah. waxaanu ku ururinaynaa dhaqaale aan ugu tabaruci doono dadkii ay arrimahaas ay wax ka soo gaareen. ha noqoto dhinaca abaaraha ama ha noqoto dhinaca daadadka roobabku ay dhaliyeen. arrimahaas waxay ka dhaceen dhinaca Queensland. anaga xogaa waa naga fog yihiin Queensland iyo meesha la yiraahdo New South Wales areaooyinkaasi ka dhaceen. marka maalinta Axadda soo socota haddii Rabbi idmo ma ahan berri, waa Axadda ku xigta oo taariikhduna ay ku beegan tahay 3 bisha Maarso. waxaanu qaban doonaa barnaamij ballaaran oo aan dhaqaalahaas ku ururin doonaa haddii Rabbi idmo. barnaamijku qaabka u dhacaya waxa weeye waxaa jiri doonta cayaar saaxiibtinimo oo dhex mari doonta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo booliska Victoria ama Victoria Police. cayaartaas waa cayaar saaxiibtinimo weeye, waana cayaar aan ugu talagalnay inaanu ku qabanno barnaamijkaas. sidoo kale waxaanu sameyn doonaa waxa la yiraahdo barbecue oo aanu runtii barbecue-gaas nin hadda Soomaaliya oo business halkan ku haysta khayr Allah siiyay ayaa nagu tabarucay. barbecue-gaas waan iibin doonaa, wixii aynu ka helnana barnaamijkaasaan insha Allah u gelin doonaa haddii Rabbi inuu tabarucaadka. sidoo kale waxaa jira dad jaaliyada runtii si volunteer ah kula shaqeeya oo maalmihii hadda ugu dambeeyay iibinaya tigidhadaasi markaa runtii dad badan baa iibsaday. aad baan uga mahad celinayaa runtii gacanta ay ka geysteen arrintaasi. waxaan sidoo kale rabaa halkan inaan ayaguna aan uga mahad celiyo dadkii gacanta ka geystay barnaamijkaas iyaga ah oo tigidhada noo soo iibinayay oo runtii u badnaa gabdho, wiilalna ay ku jireen. dhammaantood waxaan rabaa inaan ayagana halkan uga mahad celiyo. barnaamijkaas marka waxaa la rabaa jaaliyada Soomaaliyeed oo dhan oo halkan ku nool inay ka soo qayb galaan caruurta
hooyooyinka dhalinyarada dhammaan waa u furan tahay inay meeshaas yimaadaan. meesha lagu qabanayana waxaa weeye xaafadan hadda anagu aan haddaan barnaamijkan ku duubayo oo ah xafiiska jaaliyadan uu ku yaalo oo ah Flemington, garoonka la yiraahdo Debness Park oo ah garoon halkan anaga hadda saraha dhaadheer gadaashiisa ah, ama waa meesha salaadaha ciidda lagu tukado. dadka inta badan waa garanayaan. halkaas aan ku qaban doonaa. barnaamijku wuxuu bilaaban doonaa haddii Rabbi idmo 1:00 duhurnimo waxaana u dhammaan doonaa 8 habeennimo. barnaamijka waxyaabo kala duwan ayaa ku jira. waxaa ku jira waxa la yiraahdo dadka barnaamijkan gacanta ka geystay iyaga laftigooda waxaa macnaha abaalmarin ayaa la siin doonaa haddii Rabbi idmo. sidoo kale waxaa jirta bakhtiyaa nasiib oo aan ugu talagalnay caruurta, oo qofkii مثلا tigidhadaas hadhow bakhtiyaa nasiib ayaan u samayn doonaa. wuxuuna cunugaasi ku guuleysan doonaa, ilmihii hal waxay ku guuleysan doonaan abaalmarin ay noo soo gudbiyeen hay-addan FFV ama Football Federation of Victoria oo kubada ah. waxaa sidoo kale barnaamijkan ka qayb qaadan doona sida hadda aad iga maqleyseen FFV ama Football Federation of Victoria oo ah hay-adda u qaabilsan statekan dhinaca sportiga gaar ahaan kubadda cagta, oo noo keeni doona runtii iyagoo nagu tabarucaya refereega ama siirwalaha barnaamijkaasi ciyaartaasi qaban doona haddii Rabbi idmo, iyo kubadaha lagu ciyaarayo wax oo dhan. marka dadyo kala duwan ayaa kasoo qaybgali doona haddii Rabbi idmo. madaxa wadankan ka tirsan ayaa noo imaan doonta. waxaan jeclaan lahayn runtii in dadweynaha Soomaaliyeed ee halkan ku dhaqana ay runtii kasoo qayb galaan. waxaan rabaa inaan ugu dambeysiiyo maalinta Jimcaha oo hadda ka horeysa haddii Rabbi idmo, waxaa masaajidka ama xarunta halkan aan ku leenahay ama Soomaalida ama dadka Islaamku ay ku leeyihiin ee Amsa iman doona nin dhalinyaro ah oo tigidhadaasi iibin doona qayb wixii harsan. waxaa soo raaci doona nin ka socda booliska Victoria oo isaguna tigidhada la gadi doona. marka dadku haddii arkaan nin boolis oo meesha maraya aysan runtii khalkhalin oo aysan cabsan, wax dhiba ma jiraan. boolisku kaliya dambiga kaliya kama shaqeeyo, waxyaabo kale oo qabteen waa jiraan oo hadda arrintan ay ka mid tahay oo nagala shaqeynayo tabarucaadka waxyaabo badan buu qabtaa. marka banoonigaasi ama kubadda cagta ama ciyaartaasi waa ciyaar dhex mari doonta dhalinyarada runtii iyo booliska. laba ujeeda horta aan u qabanaynaa ciyaartaasi. mare waa ciyaar saaxiibtinimo ah runtii aanu doonayno isdhexgalka bulshada, oo sida مثلا dhalinyarada iyo boolisku haddii ay wada ciyaaraan waa qayb ka mid ah isdhexgalka wey. arrinta labaadna waxa weeye dadku laftigooda inay usoo daawasho tagaan oo halkaasna ay iyaguna maaragtay barnaamijkaasi kaga qayb qaataan. dhalinyaraduna runtii waa dhalinyaro wanaagsan weeye Soomaalida halkan. guud ahaan jaaliyaduna aad bay runtii u yihiin dad wanaagsan oo sharaf leh runtii wadankana sharaf ku leh. intaasaan rabaa in jeclaan lahaa inaan ku soo koobo barnaamijkan maanta. marka dhammaantiin waxaan ku boorinayaa inay barnaamijkaas ka soo qayb gashaan haddii Rabbi idmo. si wanaagsanna aynu u ururino dhaqaalahaas aan ugu tabarucayno dadkan aan walaalaha aynu nahay ama wadankan nala degan reer Australia. aad baan idin salaamayaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.